iyadoo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada uu si weyn u haystay kulanka dhex maray gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Mahdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar dhinaca kalena warbaahinta qaar ay tabinayeen in cod sir ah laga duubay gudoomiyaha ururka ONLF kadib markii wax laga weydiiyay arrimo la xiriira dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya iyo colaadda halkaasi ka hulaaqaysa dhinaca kalena in ciidamada liyu booliska furimaha hore ee dagaalka loo sii qaado maalmo kadibna dowladda federaalka Itoobiya war ka soo baxay lagu sheegay in ururka ONLF uu xiriir la leeyahay ururada argagixisada sida Al-Shabaab, Onaag Sheene iyo TPLF iyadoo ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ay sheegeen in ay dagaal kula jiraan dhinaca bariga Itoobiya ururka Al-Shabaab oo garabsanayo dagaalyahanada Ogaden Fighters ilaa iyo haddana dowladda federaalka Itoobiya haysan wax garawshiye iyo raaligelin ka bixinin arrinka ku aadan in ururka ONLF uu xiriir la leeyahay ururka argagixisada caalamiga ee Al-Shabaab iyo ururada dagaalka kula jira dowladda federaalka Itoobiya ee hubaysan ee TPLF iyo Onaag Sheene ayuu gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Mahdi maanta ka hadlay arrinta la xiriirta kulanka dhex maray isaga iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida codka sirta ee laga duubay iyo qaabka kulankaasi uu ahaa qoraal uu ku faafiyay bartiisa Facebook ayaana sidan u dhignaa waxaa baryahan hareeyay baraha bulshada arrimo la xiriira kulan na dhex maray aniga iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed halkaas oo laga abuuray kutirikuteen badan iyo warar mala awaala ilaa laga gaadhay in la yiraahdo warba laga duubay Cabdiraxmaan waxaan u sheegayaa dadweynaha sharafta leh in wax la fidinayo aanay waxba ka jirin aniga iyo Mustafa kulankaanagu waxba lagama duubin arrimo ciidan la xiriidhana kama aan sheekaysan guud ahaan waxaan ka wada hadalnay markaan qiimeynay xaaladda guud in loo baahan yahay mucaarad iyo muxaafidba in dadka Soomaaliyeed ee DDS aan ka wada shaqeyno sidii midnimada loo abuuri lahaa oo danta ay uga wada tashan lahaayeen iyadoo aan cidna la takooreynin marka waxaan ka codsanayaa dadkeena dhammaan anigoo tixgelinaya xaaladaha in colaadda dhexdeena aan u xalino kuwaas oo kaba weyn tan kuwa shisheeye aan u qabno khalad baa dhacay haddii aan ku kala maqnaano qayrkeena oon baa abid inoo talin sida hadda aan u naallo wax qiimo ah siyaasadda Itoobiya tan dunidaba kuma lihin Allah ummadeena boggeeda burcad haysu mariyo nabadiino ayuu yiri gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Mahdi oo ka hadlayay kulanka dhex maray isaga iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo maalmihii u dambeeyay ay si weyn u haysatay baraha bulshada dhinaca kalena la sheegayay in cod sir laga duubay gudoomiyaha laakiin ururka ONLF ilaa iyo hadda wax warbixin kama soo saarin arrinta la xiriirta inay ka tirsan yihiin ururka Al-Qaacida ee Al-Shabaab iyo sidoo kale ururada ka dagaalamaya gudaha dalka Itoobiya ee Onaag Sheene iyo TPLF gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Mahdi dhinaca kale kama had warka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee daymaha loo soo jeediyay ururka ONLF iyo sida ay u arkaan arrintaasi xilli ay soo baxayso in Itoobiya ay gacanta ku hayso dukumeentiyo la xiriira in ururkaasi uu xiriir la leeyahay ururada Al-Shabaab Onaag Sheene iyo TPLF xubnaha kaadirka golaha dhexe gudida fulin iyo shacabweynaha Soomaaliyeed ee ururka ONLF sida weyn u taageero ayaa su'aalo iska weydiinaya arrintan iyadoo maalmihii u dambeeyay ay waxan weyn ka abuurtay baraha bulshada haddaba adigu sideed u aragtaa hadalkan ka soo baxay gudoomiyaha ONLF dhinaca kalena uu kaga hadlay arrinta la xiriirta kulanka isaga iyo madaxweyne Mustafa iyo waxyaabaha dhex maray iyo qaabka uu wajahay